ما صارت أبايو. أعوذ بالله وصار وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قومة حقوق. ما شاء الله شيخنا القادل شيخ توقف مع السوء إلى الدنيا آخرة أخواتي ومحاضرة إن شاء الله تعالى إلى داعي إلى مني يسمعني كسر خميس والشيخ ينسو قلي إن شاء الله تعالى إن شيخنا وكود داري إن شاء الله بارك الله فيك صدو. The recording has been started. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أخواتي في الله إن شاء الله تعالى وحين كقد جرناه مواضيع ذني بشارينتي النبي عليه الصلاة والسلام ومديس بشاريني موضوع إنه ما انتقادنا وحاوي تبشيره صلى الله عليه وسلم للبارين آباءهم بسعادة الدنيا والآخرة. بشارين النبي بشاري dadka u baarin sameynaya u samafalaya waalidkood sacaada adduuniya mid aakhira in ay leeyihiin ama aabihii ama hooyadiiba fadliga aad iyo aad u weyn qiimeyn ah darajooyinka ugu sarreeya ah ayuu Allah subxaanahu wa ta'ala gaarsiiyey wujuudkooda iyo imaanshahooda sababtooduna loogu baarinimo sameynayo. Allah subxaanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وحو ربي قويي هو حكميي إن أد وحوي سجم يعيد كلا أن لعابدين سدوك لوحو أمري أو قويي إلا بدا والدنا وناق الله سميه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف هأوران هذا الحن هذا الوحود دمية ولا تنهرهما هقول قول وقل لهما قولا كريما. هذا الوناكسن أصوبا كده واخفض لهما جناح ذل قربك الرارع رحمة ينحريسا كاموقته وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الدعاء وحاتر هذا ربي ولبدا إذا والدون حريصه سيدا إيسو كوريين وإيسو برباريين مركي أن يرى مرحلة هي حالة أن صومر يد القاطع ويقصوا سمري وهلكا إلى السوء كيسي دعاء كحر. sidoo kale Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'a alla kaligi caabuda innaha la wadaajinina cibaadadiisa wa bil walidayni ihsana. Allah isaga isku xiraya labadii waalidna samafal iyo wanaag u sameeya. bal Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu ka dardaarmay caruurtii uga dardaarmay waalidkii aabayaashii buu uga dardaarmay. Allah waxa uu leeyahay wasayna al-insana biwalidayhi وإنسان كي وحنا أقدر دارنا لبدي سوالي. آيات كلا الله وحولي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. آيات كلا وحولي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. كل آياتك سورة اللقمان هي سورة العنكبوت هي سورة وحوي أحقاف ما جعلها أنت آياتك كجرة كل دردارك الله سبحانه وتعالى وعرورتي للدردار مية وكلا الدردار مية والديتي دلي الله الدردار مية caruurtii baa lala dardaarmayaa inay u samafalaan oo ay wanaajiyaan labadii waalid ee dhalay samafal iyo ihsaan ay u sameeyaan. Allah isku xiray cibaadadiisa xaq uu leeyahay adoomada ku leeyahay markuu tilmaamay waalidkii buu ku xijiyay. sidoo kale wasa nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi sunnati al-abna' bil aba
sidoo kale nebigaa ka dardaarmay siduu allah subxaanahu watacaala oga dardaarmay sunnadiisa oga dardaarmay carruurtiibuu ugu dardaarmay in ay u samafalaan waalidiintii xadiis abi darda uu werinayo oo xasan oo bukhaari adab lmufradka uu ku keenayo marwazina taxdiimu qadar salaad uu ku keenayo saxiixu adab lmufradkana uu ku jiro ayaa waxa uu leeyahay abi darda radia allahu canh qaala awsaanii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam bitis rasuulkaa ii dardaarmay 9 minhaa waxaa kamid ahaa 9ka wa atic waalidayk labadaada waalid atic wain amaraaka an takhruja min dunyaaka fakhruj lahuma hadday ku abraan waxa aad xoole iyo adduunye haysato oo dhan inaad ka dhex baxdo iyaga aad ku wareejiso samee oo raac oo amarkooda qaado fakhruj lahuma ka dhex bax haddii lagu yidhaahdo waxaad xoolo hayso oo dhan halkaas soo dhig amarka qaado oo waxa weeye fuli sidoo kale rasuulku sala allahu alayhi wasalam xadiis bukhaari adab lmufradka uu ku keenay imaam axmedna uu keenayo ibnu maajahna uu keenayo sheekh naasiran silsilatu axaadiiso saxiixa uu ku keenayo ayaa rasuulku waxa uu leeyahay ina allaha yuusiikum biummahaatikum uma yuusiikum biummahaatikum uma yuusiikum biaabaa'ikum uma yuusiikum bilaqrabi falaqrab allah subxaanahu watacaala nebi maxamed baa ka dardaarmaya wuxuu idin dardaarmayaa buu leeyahay biummahaatikum war hooyooyinkii samafalka iyo wanaajinta iyo xaqa ay idinku leeyihiin uma yuusiikum biummahaatikum wuxuu idin dardaarmayaa xaqa ay hooyooyinka idinku leeyihiin uma yuusiikum biaabaa'ikum kadibna aabayaashii uma yuusiikum bilaqrabi falaqrab markaasay qaraabadu isugu xigto taasuu rasuulku sala allahu alayhi wasalam uga dardaarmayey xadiis abi hurayra radia allahu canhu uu werinayo oo rasuulka uu ka werinayo oo uu soo saarayo bukhaari iyo muslim ba ay soo saarayaan ayaa aba hurayra waxa uu leeyahay jaa rajulun ila rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam nin baa nebiga u yimid faqaala wuxuu yihi ya rasuula allah rasuulkii allo man axaqu nnaasi bixusni saxaabati inaan wanaajiyo dadka yaa igu xiga oon u samafalaayo wanaag u sameeya qaala wuxuu yihi ummak hooyada uma man markaasaan yidhi yaa ku xiga qaala markaasuu markii labaad yidhi ummuka hooyada qaala markaasuu yidhi uma man yaan ku xijiyaa qaala wuxuu yidhi ummuk qaala wuxuu yidhi uma man markii afraad buu wuxuu yidhi abuuka aabaha dardaarankii sa ninkii u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam man axaqu nnaasi bixusni saxaabati suxbiga iyo wanaagga iyo samafalka iyo gargaarka iyo wax u qabashada dadka yaa igu xaqnimo badan markaasuu yidhi hooyada markaasaa yidhi yaa ku xigu yidhi markaasaa mar labaadna hooyadaa baa la yidhi mar saddexaadna hooyadaa baa la yidhi markii afraad baa aabihii la keenay sidoo kale xadiis kaloo saxiix ah oo imaam muslim uu werinayaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxa uu leeyahay laa yajzi waladun waalidan ila an yajidahu mamluukan fayashtariyahu fayuctiqahu ma gudanayo xaqa waa ilmuhu waalidka uu ku leeyahay ilaa inuu helo isagoo addoon ah oo uu soo iibiyo oo uu xoreeyo halkaa hataa ula gaara mooy si kale kuma gaaray sidoo kale abi burda saxaabiga jaliilka ayaa waxa uu leeyahay anahu shahida ibnu cumar wuxuu xaadiray oo uu ka qayb galay cabdullahi ibnu cumar saxaabiga jaliilka ee cumar ibnu khataab u dhalay wuxuu yidhi wa rajulun yamaniyun yatuufu bilbayt iyo nin ree yaman ah oo kacbadii tawaafaya ayaan xaadiray buu yidhi xamala ummahu hooyadii buu xambaarsan yahay ninkii ree yamanayd waraa'a dahrihi dhabarku ku sitaa wuuna la tawaafayaa kacbadii buu la wareegayaa uma qaala markaasuu wuxuu yidhi intuu cabdullahi ibnu cumar u yimid ya bnu cumar ataraanii jazaytuhumaa ma aragtaa xaqeedii inaan gutay ma u malaynaysaa sidaan aan samaynayo qaala markaasaa wuxuu yidhi laa may walaa bizafratin waaxida fool yar oo qabatay hataa uma dhigantay inta aad hadda wadid zafra waaxida oo aad samaysay uma dhiganto adabulmufradkaa raacinaya riwaayaddaa ziyaada baarinimada loo sameeyo waalidka loo sameeyo min akhlaaqi alanbiyaai wasaxaabati wasaalixiina min cibaadi illahi bay kamid tahay biriga iyo samafalka akhlaaqdii wanaagsaneed ee ambiyadu ay ka tagtay kamid tahay saxaabadii dhaqankii wanaagsaneed oo looga dayanay bay kamid tahay dadka saalixiinta wan wanaagsanay allah uu jecel yahay ee addoommada allah subxaana watacaala dhaqankoodii akhlaaqdooda wanaagsan bay kamid tahay ama alambiya oo looga dayanayo dhaqankoodii akhlaaqdoodii wanaagsanay nabiyullahi nuux calayhi salaam
oo ambiyada iyo rususha Allah subhanahu wa ta'ala rusushu soo diray ugu horreeyay ulul azmigana uu kamid ahaa ducooyinkiisa waxaa kamid ahaa rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wa lilmu'minina walmu'minati wa la tazid adh-dhalimina illa tabara suratu nuh rabbiyo ii dambi dhaaf labadayda waalidna u dambi dhaaf waliman dakhala bayti mu'minan wa lilmu'minina walmu'minat ila aakhir ducadiisi bal u fiirsan nabiyullaahi nuh wuxuu u ducaynayaa labadiisii waalid wa akhlaaqdii ambiyadii wanaagsanay nabiyullaahi ibrahim alayhi salaam ducooyinkiisa u fiirso rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumu alhisaab rabbiyow noo dambi dhaaf aniga iyo labadayda waalid iyo dadka mu'miniinta maalinka xisaabta iyo abaalmarinta ay jirto nabiyullaahi ciisa alayhi salaam ayaa waxa uu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala isagoo ka hadlayo وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا سورة مريم الله وحي دردار مي صلاة يزكو انت ان لولاهي iyo baarinimo inaan u sameeyo hooyaday walam yaj'alni jabbaran shaqiya mid madax adag oo shaqiyo ku daraysay oo adbiyo ku qasaaray aakhira ku qasaaray inuusan Allah subhanahu wa ta'ala iga yeelin maxaa yeelay waalidka oo la cadeecin oo samafal iyo birri loo sameeynin adduunyadana qofka waa ku baaba'aya shaqi buu ku noqonayaa aakhirana waa ku guul daraysanaya يحيى عليه السلام نبي الله يحيى وقرنيسان يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم السبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا بل نبي قاسد الله والرمية نبي الله يحيى وحليه خذ الكتاب بقوة أوت يقوة كوق هذا كتابك وحنصيني حكمك يسوى عرورة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا الله كورمي وحوها نين سمفلا وبارئ لبدي سوالد جبارنا ما هين من عاصنا ما هين وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا أما الصحابة رضي الله عنهما أبي هريرة أدقرن إيسان رضي الله عنه ويدي مشركات بياهيد انت إيسان إسلام كور أبو هريرة وحو أورنجري كنت أدعو أمي إلى الإسلام ويدي أيان الله سبحانه وتعالى وبر يجري إني سو إسلام كان ويري وهي مشركة إسيا كحكايونية ويدا يوم مشركة أيان إسلام كويري مركاس الله سبحانه وتعالى أبريي فدعوتها يوما ما لم بان الله سبحانه وتعالى أبريي إنه الله سبحانه وتعالى إسلام كويره فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرهه وحيقسو قاري هو ويضي هذا الكيدي وحان تبصنا يا رسولك أي كشيكتي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي رسول كان أتجي أنا أينيو إلمينيا قلت وحان كنير يا رسول الله رسولك يا الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي وحان أروه يضي وأن إسلام كويري وأدعي وأبري الله سبحانه وتعالى سوى البنويرين فتأبى علي ويقديدي فدعوتهم اليوم ما لنبان أدعي فأسمعني فيك ما أكره وحان كم مقلي وح أديك أي كاشيكتي وأنا أدولي بسنية فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة رسولك الله سبحانه وتعالى هداية وحوينه الله سوهنون يغبري ويضي أم أبي هريرة الله أكبر ومشركة ويوفيرس رسولك وحكا شيء يساوفيرس انت أصنع أبو هريرة وحو إلهي سبحانه وتعالى بريا ويدي إني سو إسلام رسولك لي يغبر إلهي سبحانه وتعالى دعادي رسولك واتقرنا يسان مركز رسولك وحير اللهم اهدي أمي أبي هريرة إله أبي هريرة هو يدي سوهنوني إله أبي هريرة هو يدي سوهنوني مركز وحير فخرجت مستبشرا بدعوة النبي الله صلى الله عليه وسلم ويقين سنة صحابة وحن النبي كصوب بحاتك إني وحي آيتاي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بشارة ودعي إنه كب بشارة سنة يسوى فرح سنبو صبحي فلما جئت مركان إمد أي وحي قصرت إلى الباب كمان قصدي فإذا هو مجاف وحن مغلي مجاف يا شرقا يقبيس فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة أبو هريرة وماشى هذا جوك وسمعت وحن مغلي خضخضة الماء بيه يسكش بيسي شرقا فودي يكو بيسانيسي قال وحير فاغتسلت ويقبيسته ويميرته لم
isqulama jirin guryaha lagu dhex qubaysanayay walabisat dircaha cambuurkeedii bay soo xiratay wacajilat can khimaarkeediina way soo xiratay fafataxat albaabkii bay furtay markuu rasuulku saa uga yimidba uma qaalad waxay tiri ya aba hurayra ashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu ana muxammadan cabduhu warasuuluh tawxiidkii bay qirtay qaala farajactu ila rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkaan ku noqday faataytuhu wa ana abkii min alfarax ana oohin la ilmaynaya farax dartii la ilmaynaya ayaan rasuulka u imid qaala waxaan ku yidhi qultu ya rasuula allah rasuulka allo abshir faqad istajaaba allahu dacwatak allah subxaana watacaala baryadaadii waa aqbalay wahadaa abi hurayrana alla waa soo islaamiyey rasuulku faxamid allah waathnaa calayhi waqaala khayran markuu furfurtay oo alla ku mahadiyey oo amaanay ayuu yihi waa khayr haddaba xadiiska muslim uu warinaya radia allahu canka ya aba hurayrata wallahu ina hada huwa albir wallahi wuxuu yihi biriga iyo samafalka iyo dadaalka aad ku dadaalaysid bata alla subxaanahu watacaala kugu siiyey ilaa uu ku dadaalay in ay soo islaanto baryadii iyo ducadii iyadoo mushrikada maxaad mooday qofkii muslimka ah hooyadii iyadoo muslimnima kusoo gaaray وبعد أن أسلمت كان رضي الله عنه إذا دخل عليها صاح بأعلى صوته مركو معناها أي إسلامتي كذب هو يدي كان رضي الله عنه مركو قال قرب قيلني أعلى صوتي عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتا تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول رحمك الله يا ربيبة وحو رجلي هذا الكئات كأقيمها بدنام يا ربيبتني الصغيرة فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما برتني كبيرا بل أفيرس وحو أرني إلهي أكون حريص سات صبر بارسي أنا يرو إلما وحرك لقرني فتقول يا بني إذا محي أرنيسي وأنت فجزاك الله خيرا أذيقنا إلهي سبحانه وتعالى خيري وناك هكوكو أبا المريو ورضي عنك أنا كارها إلا نقضى كما برتني كبيرا أنا وين سات يقول بارهني ما سميسي بل أفيرس أبي هريرة رضي الله عنه حديث كالبخاري بهذا والمفت كوكينا يقيبه ساسدم بالدعاء ساعة سيدو كلا أسماء بنت أبي بكر تقول حيورنجرتي قدمت علي أمي وهي مشركة بس حالة كده يشهدوا في صدق ذكي راعي اللي يري إيه وناك سنايا دقن كودي أخلاق دودي أسماء بنت أبي بكر أي وحي أورنا يسوي وحا تمت أو صفر كتمت هو يضي أو مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقي رسولك فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو البابا وحي كور مرينيان waxa uu rasuulku yiraahdo ma aha sida anaga dhaqanka hadda aynu sameeyno business buu galaya markuu xaaraan wax ku dhaco oranaya ma banaan tahay waxa aan sameeyay isagoo marka hore intuusan gelin aan weydiin gabadhu guur bay galaysaa waxay oranaysaa waxa mii banaan tahay waxa walbaba shareecada ka hormarinteeda iyo dhaqankeeda ay leedahay taas qofku waxa weeye markii ugu horeysay oo ay hooyadeesa u timidba rasuulkay weydiisay waxa ay kula dhaqmi lahayd فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال بان ويديو استفتاء بان ويدي رسولك الله قلت وحان كويري قدمت علي أمي رسولك الله هو يدي بايتمد وهي راغبة أي طائعة فيما عندي يضو ربطة معناه رجينيسا إن أنا وح أقبت وح أكتي إلي الله وحان كسي أبار إنما سمية تسألني البر والإحسان إليها وحي ويدينيسا إنه هناك يسمى فالأسمية أفأصل أمي يا رسول الله رسولك الله محريريا وناقي يسمى فالمؤسمية قولي مركي تمد ومركي ورسولك ودقاقني أسماء بنت أبي بكر مركاسو يري رسولك صلى الله عليه وسلم نعم سلي أمك ويا ذا حريري قرابا نمضى أي كقول يضاي وناقي أي كقول يضاي ومشركة هذا أقو مركا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان وحوها بارا بوالده في حياته وبعد موته nin aad iyo aad looga daydo ahaa baarinimadu xilligii nolosha aabihii uu noolaa Umar ibn Khattab iyo xilliga uu gooriyeeday kadib adilada soo aroortay axaadiista ku tusaysa Abdullah ibn Umar wuxuu ahaa markuu Maka aadaya wuxuu lahaa dameer aad u qurxoon safarku uu ku aado oo yatawarracu ala ida malla rukubu raahila markuu safarku ku daalo oo uu fuulo imaamad qurux badan oo uu madaxa ugu xiran yahay iyadoo maalin uu labis ugu fiicnaa iyo dameerkii uu wato oo ximaarkiina uu saaran yahay ayaa waxa soo maray nin acraabi ah safarkii jidkii soo maray farkaasuu weydiiyay wuxuu yiri alasta ibn fulan soomaadan ahayn hebelkii ina hebel ahaa qaala wuxuu ku yiri bala faactaahu alximaara dameerkii buu ka degay waas
siiyey waqaala wuxuu yidhi irkab haada walcimaamata cimaamadii quruxda badnayd xilligaasna dharka sida laga ahaa ad ogtihiin buu siiyey qaala markaasuu ushdud biha ra's madaxa ku xiro qoraxda iskaga ilaali dadkii saxaabada ahaa ee taabiciinta iyo saxaabadii qaar la socday baa waxay ku yidhaahdeen bacdu asxaabihi gafara allahu laka ilaahay subxaana watacaala ha kuu dembi dhaafo gafara allahu laka actayta hada alacraabiya ximaar dameer dhan baad siisay oo markaa gaadiid iyo gaari aad wada u dhiganta hadda qaaligiisa kuntu tarawaxu calayhi wacimaamatan kunta tashuddu biha ra'sak dameer dhan baad siisay haddana cimaamadii baad ugu dartay maxay tahay maad mid siisid cimaamadaa ku filneed oo keliya maxaad intaanoo dhan safarka aad ku mari lahayd iyo cimaamadaadii oo qoraxdaa iskaga dhigi lahayd iyo gaadiidkaagii aad wadatayba aad u siisay dadkii baa weydiinaya la socday markaasaa wuxuu yidhi inii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquul rasuulkaan maqlay oo leh ina min abari lbiri silata arajuli ahla wuddi abiihi birinimada iyo qaraaba xariirinta ugu wanaagsan waxa weeye inuu qofku aabihii dadka uu jeclaayo la sheekaysanayo uu xariiriyo ay asxaaba abayhi meeshuu barbaarinimo ka gaaray iska arag cabdullahi ibni cumar wuxuu xariirinayaa dartii aabihii cumar ibnu khataab bay saaxiib la ahaayeen oo sheeka wadaag ahaayeen aabihii baarinimo uu samaynayo oga dhigaya dameerkiisii buu ku siiyey bacda an yuwalliya wa ina abaahu kana sidiiqan licumar radia allahu canhu ninkaasna aabihiisu cumar buu sadiiq la ahaa saaxiib la ahaa xiriirinta meesha ay ka gaartay maalin maalmaha ka mid a cabdullahi ibni cumar wuxuu soo ziyaartay nin madiina jooga markaasuu wuxuu yidhi atadri lam aataytuka waxaan kugu imid ma garanaysaa qaala wuxuu yidhi qultu la qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam yaquul man axaba an yasila abaahu fii qabrihi qofka jeclaysanaya aabihii oo qabriga ku jira inuu xariiriyo falyasil ikhwaana ay asxaaba abiihi saaxiibadii ha xariiriyo dadku walaalihii ahaa aabihii la sheeka wadaadka xiriirka ka dhexeeya wanaagga ka dhexeeyay dadka ha xariiriyo bacdahu gadaashi cabdullahi ibn cumar hadalkaa waxaa werinaya u fiirso waxa weye abu yacla ibn xibaan baa werinaya sheeknaasna saxiixu jaamicu sagiirku ku keenaya waa xadiis saxiixa waxa uu leeyahy athar saxiixa cabdullahi ibn cumar madiinu soo booqday nin buu u yimid markaasuu yidhi waxaan kugu imid oo aan madiino dhan intaan soo dhex maray adigoo aan gooni kugu imid ma garanaysaa mayuu ku yidhi ninkii wuxuu yidhi marka ugu horreysa waxa la isku daaweynaya waa xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rasuulkaan ka maqlay oo leh man axaba an yasila abaahu fii qabrihi qofka jeclaysanaya aabihii oo qabriga ku jira inuu xariiriyo falyasil ikhwaana ay asxaaba abiihi bacdahu aabihii markuu geeriyooday kabacdi asxaabtiisii uu lahaa ha xariiriyo وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذاك وحي أذيك يا عبد أبهي حرير وناكسن صحيت إنما وناكسن جعيل وناكسن بإذن كدحية تا إن أبهي كو حريريان وقلت لقلهم كو إمدون كو حريرين يا وصحابتي dhaqankoodii sidaas u ahaa dadkii wanaagsanaa sidaasay ahaayeen heerka ay u gudbeen iska daa waalidkii waxa weeye dadkii la ehelka ahaa dadkii la saaxiibka ahaa dadkii la qaraabada ahaa dadkii ay sheeka wadaaga ahaayeen yuu ajar oga dalbayaa inuu xiriir oga dhiga aabihii xiriirintiisa ama dadka saalixiinta ee wanaagsana ee ku dayashada mudana maalin maalmaha kamid ah rajulun kana yuqabbilu ra'sa ummi inba wuxuu ahaa markuu soo galo hooyadii u soo galo halkaa madaxuu ka dhunkanaya وكان لا يمشي فوق ظهر بيتي هي تحته إجلالا لها هدي يقولوا لما طبقوا إياهي هو يدينا هوس جوكتو كركو مسو عنجرين إجلال إيا وينين إيا احترام واحترامي وكإلالين إيا وحوال بورني بيا وحاوي سلاح الأمة وكوكينا مجالات لشنا اللح بقول كنتن يلح أيو أثنى كوكينا هذا الكلام سيدو كالنين بابار رئوها أبيه برق يسمى فالكي بوحو كقاري أبيه سجنك كجرة وحبسك كجرة oo mariid oo xanuunsanayo oo aan ku weysa qaadan karin ilaa biyo la kululeeyo saakhina mooye ayaa dadkii sajaanka ahaa maxbiista xirxiray ee hayay ayaa biyihii u diiday in loo kululeeyo habeenada kamid oo aad u qabo markuu aabihii seexday wiilkii baa kacay biyihii qabooba ayuu intuu istaagay oo weel uu ku shubay ayuu kadibna waxa weeye faynuusi iyo misbaax la shidanayay shiday shumaca ahayd la shiday markaas ku kululeynayay weelka isagoo gacanta sida ugu haya ilaa waagi uu ka bariyay odagii salaadii uu soo kacay uu arkayo wiilkii biyihii halkaa la taaga oo ugu kululeynaya si uu ugu weysa qaato marka uu soo kaco inba Umar u yimid Umar ibn Khattab baa wuxuu ku yiri inna li umman balagha biha al-kibr hooya ii sugnaatay da'a wa anna laha
لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها حاجة يدنتها ما جودن كرت إلا دبرك إن كوسي دمويه فهل أديت حقها حق يدميان قلتي قال وحير الله لأنها كانت تصنع محاد سمينيسد بكذلك ساسي كوسا من جرتي وهي تمنى بقاءك وأنت تصنع وتمنى فراقها وحير يدو دعه أي markay adigu ku qaadaysay oo ku xambaaraysay waxay jeclayd inaad korto oo aad barbaarto oo ay waxay tamaninaysay haritaankaada iyadoo ay dhimato adiguna waxaad u samaynaysaa qaaditaankaasi culays ku saaran iyo adoo tamaninayo marbay ka dhacaysaa culayskaan ka tagaysaa xaggay u badatay marka waad kala tagteen xagga niyada iyadoona wanaajintaada iyo birigaada u samaynaysaa hadalkaas ugu jawaabay Umar oo muqtasir biwalidayn Abdurrahman Rauf al-Hanawi uu keenayo bir al-aaba oo loo samafalka iyo wanaaga aabayaasha loo saynayo waa jihaad fi sabilillah ilahi dartii lagu jihaadayo kale u dhigata xadiis uu warinayo Bukhari iyo Muslim Abdullah ibn Amr ibn Aas ayaa waxa uu leeyahay jaa rajul ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nimba nabiga u yimid markaas wuxuu ku yiri ninkii oo doonaya inuu jihaad u baxo ayaa wuxuu ku yiri rasuulka Allah waxaan rabaa jihaad inaan aado inaad ii fasaxdo waxa uu kula tashadaan rabaa markaas rasuulku wuxuu yiri ayyun walida labada waalid ma nool yihiin qaala wuxuu yiri nacam qaala wuxuu yiri fa fiihima fajahid ayaga ku jihaad buu yiri sidoo kale rasuulka sallallahu alayhi wasallam nimba u yimid faqala wuxuu yiri ubayi'uka ala al-hijrati wal jihad rasuulka allahu hijro iyo jihad baan kugula mubaayacoonaya abtaqi al-ajra min Allah azza wa jalla ajrna ilahi subhanahu wa ta'ala anoga dalba markaas rasuulku wuxuu yiri hal min walidayka ahadun hayyun labada waalid cid nool ma jirtaa qaala wuxuu yiri nacam bal kilahuma labadoodaba way nool yihiin qaala sallallahu alayhi wa sallam فتبغى الأجر من الله عز وجل فتبغي الأجر من الله عز وجل أيها أجر كذلك أيها كرادي أجر كرادي هلك أيها كدحرادي قال وحير نعم فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما لبدا هذا والد كن نقوه أصم فوناك أصم بل رسولك صلى الله عليه وسلم ورجهاد كيبو حكور مريي سمفلك يبرق لبدا والد الله سمين عبد الله بن مسعود بوحي ورنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله حديث كيمده يا خير كجرات قرنيسان عمل الله سميه كيبو الله وجع عيل بدية قال وحير الصلاة على وقتها صلاة أو وقت جدلت كذا قلت وحن كير ثم أي قال بر الوالدين لبدا والد الله سما فلو لو ناجيه عمل أثقبت ومدك الله سبحانه وتعالى وجع عيل بدية ثم أي محاك حير رسولك الله مركز سد هذا الجهاد في سبيل الله انت marka aynu biriga iyo samafalka iyo wanaagu aynu garanay hadana bishaara ilaahi subhanahu wa ta'ala qofka laga helo amalkaas wanaagsan oo cibaadada ah oo alla loogu dhawaanayo adduunkana loogu bishaaraynayo aakhirana loogu bishaaraynayo awalan waxa uu qofka baariga ah ee labadiisa waalid biriga u sameeyo ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu bishaareeyay inuu alla ka raali noqonayo oo ducadiisa la aqbalayo qofku alla raali ka noqdo waa qof ilaahi subhanahu wa ta'ala ficilkiisa qowlkiisa uu aqbalay bariyadiisa la aqbalay waa qofka baariga oo labadiisa waalid ha ku bishaaraysto inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala raali ka yahay oo ducadiisa la aqbalayo حديث حسن إمام الترمذي وكينيو بزارنا وكينيو حاكمنا وكينيو لفظنا الترمذي أوليه شيخ ناصر وصحيحنا يا رسولك صلى الله عليه وسلم وحوليه رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما الله اللي كان نقضه وحيكون حيرانتهي في رضا الوالدين اللي بدا والد اللي كان نقضه وسخطه الله أو كو عروضنا وحي كو حيرانتهي في سخطهما لبدا والد أو كو عروضه قفك الله عربي كبقية هاسك إلالي والد كو عروضه قفك الله رديه سيرا لها شيء سربان لبدا والد هاو بارني ما سمي يرال لها كان نقضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحوليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان مقلوله يقول إن خير التابعين بالأفير ستابعي بسيط المام يا رسولك إن خير التابعين ستابعين توحى أبو خير بدن رجل يقال له ويس القرن وله والدة هي أصبناطي وكان به بياض عمال عضو وجركي سكمن أولها فمروه فليستغفر لكم معناها
haddaad aragtaan inuu ilaahay subxaana watacaala istikfaar iyo dembi dhaaf weydiiyo iisoo weydiiya في رواية كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن هذي يمن ضد أجي ماذان أما أجي ماذان سألهم أفيكم أويس بن عامر من كجرانك حتى أتى على أويس قال أنت أويس بن عامر ما نبو أويس تجي وحكير ما هذه أويس قال نعم بوير قال من مراد ثم قال من قرن قال وحير ثم من ثم نعم قال فكان بك برس مكويالا فبرأت منه إلى موضع درهم موضع شلن من الله ديقوكله أيا كم موقضة قال نعم بوير قال لك والدة مكوسقنات قال نعم بوير مركو انت سؤال ويدي أي عمر يري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر وحيدين إيمانا يا أويس بن عامر أويس القرن وياه مع أمداد أهل اليمن إسقوا الله صعده جد قرمت أهو أهل اليمن أهو إسلام كسوقاتي من مراد ثم من قرن كان به برس فبرأ منه إلى موضع درهم وإلهي سبحانه وتعالى وكشف إلا مال شلن إلا دقاء كلامه والدة أصقناتي هو بها بر بوها رسول كاتل مامية لو أقسم على الله الأبرد الله قدرتنا بارين مؤسمين الله واك أقبليا فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل عمره هدي أذكرك أودي كتنو الله استغفار كويدية وتقوني كاسي ساسمية فاستغفر لي دم بد الله دم بدا في ويدي فاستغفر الله مركز وحوي أويس عمر وير إله عمر ودم بداف بشارة الله بعد وحوي أيها البار وفك بارق لبدي سوالد إنه إلهي سبحانه وتعالى كافي بتفريج الكروبات واستجابة الدعوات كروبات إيه والبهار إيه ملوغادة إيه حسن قال لك في ذي بشارة ونبي عليه الصلاة والسلام ونوت الصيب waxaad ku garanaysaan oo idinkaga filan oon ku soo aruurinaya saddexdii qole ee tagtay ee ummadihii naga horeeyay ahaa ee godka intay biyihii iyo roobkii ay ka galeen godkii afkiisi uu xirmay markay galeenna waxa weeye sakhre iyo jabal weyn ay godkii afkiisa isku xirtay oo isku dabooshay markaasay waxay yiraahdeen maanta meesha aan ku sugannahay waxaan uga badbaadi karnaa oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala nooga saari karaa illa an tad'u allaha ta'ala bi salihi a'malikum ruuxu walbaba camalkaaga midkaad isleedahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo ugu dhawaanaysa ku weydiisay ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga saaraya ninbaa wuxuu yiri marka camalkii ugu horeeyay ilaahay uu ku bariyay biriga iyo samafalka waalidka loo sameeyay adduunyada la isugu gargaaraya wuxuu yiri allahumma kana li abawani shaykhani kabirani ilaahay waxa ii sugnaaday laba waalid oo daa oo aad u waaweyn wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala maalan idna ma anquu jiro waxba ma siin jirin maal iyo ehl iyo xoolo iyo adoomo idna waxa weeye iyaga inaan wax siiyo mooye maalin maalmaha kamida daaqsintii ila dheeraa xoolihii baa ila fogaaday ma aanan soo laaban ilaa mar ay seexdeen baan imid xaanihii baan u soo lisay haruubkoodii baan uga soo bixiyey waxaan u imid gurigii iyagoo hurda markaasaa waxaan ka taday buu yidhi inaan hoosiyo hurdadii ka kiciyo weelkiina gacanta uu ku hayo ilmihiina ay ku hoos ooynayaan cid kalena uusan waxba siin sidaasaan gacantayda ugu hayuu yidhi walqadaxu calaa yadaya riwaayaadka qaar antadiru istayqaaduhumaa ilaa aan ka suga inay soo kacaan barbarinimada intaa laag iskiibu u yimid xoolihii uu soo xareeyay caanihiiba u lisay markaasuu arkay inay seexdeen markaasuu ka xishooday inuu u toosiyo habeenkaas oo dhan buu weelkii gacanta ku hayay oo isagoo ka sariiganaya oo ka xishoonaya inuu toosiyo xataa baraqa alfajr ilaa fajarkii uu dilaacay ilmihiina ay yatadaaqanuuna cinda qadami buu leeyahay wasabiyatu yatadaaqanuuna sidaas riwaayaadka ay ahaayeen cinda qadami lugahaygay ku oynayaan gaajo darteed way soo kaceen fashariba qabuuqahumaa caanihii loo soo lisay bay cabbeen allahuma in kuntu facaltu dalika ibtigaaa wajhik allow arrinkaa haddaan birigaa iyo samafalkaa u sameeyey dalbid aan dalbaya wejigaaga iyo raalli ahaanshahaada fafarijnaa maa naxnu fiihi min hadihi sakra naga fur oo naga fayd sakradan iyo dhibkaan meeshaa nagu hayso fainfarajat shay-an laa yastatiicuuna alkhuruuja min waxaa ka faydantay wax in aysan heli karin ka bixidooda bal u fiirsa ruuxaasi camalkiisa saalixa bishaaraynta adduunyada loogu soo dadejiyey qodobka saddexaad ee bishaaraynta waxa ayuha albaaru biwaalidayka abshir fa ina albira waalidayn yukaffiru dunuuba alcadiima dembiyada waaweyn baa lagu dhaafaa samafalka iyo biriga allah subxaana wa tacaala qofku uu u sameeyo waalidkii uu sameeyo biriga iyo samafalka waalidku uu sameynayay allah subxaana wa tacaala dunuubta waaweyn buu ku dhaafaa عبد الله بن عمر با waxa uu leeyahay bal ruwaayadan aad ku fiirsada saxiix weeyo imaam tirmidhi baa soo saaray yakun 704 xadiiska raqamkiisu yahay imaam ahmed
baa soo saaraya ibn xibaan baa soo saaraya xaakim baa soo saaraya sheekh naasirna saxiixu targhiib wa tarhiibku ku keenaya 2504 xadiiska raqamkiisu yahay ayaa waxa uu leeyahay cabdullahi ibn cumar ana rajula nabiy sallallahu alayhi wasallam nin baa nabiga u yimid faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allahi inni asabtu dhanban cadiima fahal liya tawba rasuulkii allow dembi aad iyo aad u weyn baan galay ee wax tawbaa ma yahay qaala wuxuu yidhi hal laka min hooyo ma kuu sugnaatay ma leedahay hooyo markaasaa wuxuu yidhi qaala la qaala wuxuu yidhi hal laka min khaalatin habaryar ma leedahay qaala nacam buu yidhi qaala fabiraha haddaba u samafal baskii hooyadii iyadaa taagane u samafal bal u fiirso tooba ma leeyahay markuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxyaabihii dunuubtaasi macaasidaa weyn uu sameeyey waxaa loo dardaarmay inuu waalidkii hooyadii hadday noolaan lahayd u samafal baa la dhihaa biri u samee markii hooyadii la waayena waxaa la yidhi habaryartii u gargaar oo biri iyo samafal iyo wanaag u samee baa la yidhi biriga iyo samafalta dunuubta iyo macaasida waaweyn baa lagu dhaafaa sidoo kale cabdullahi ibnu cabaas ayaa sii cadaynaya wuxuu yidhi annahu ataahu rajulun nin baa u yimid cabdullahi ibnu cabaas turjubaanu lqur'aan mufasiru lqur'aan qur'aanka fasirkiisa looga dambeeyey tafkiisa looga dambeeyey cabdullahi ibnu cabaas ayaa nin u yimid markaasu wa inii khatabtu imra'atan bal ninkaan dembigu gale u fiirsado wuxuu yidhi haween baan doonay reerkoodii baan ka doonay faabad an tankixanii way idiiday inay guursato markaan reerkii ka doonay ayay gabadhii idiiday oo waxay tiri ma raba ninkaa وخطبها غيري ننكلا دوني قبدي ويري فأحبط أن تنكحه ويجعلاطي ونكي كلي قورستي فغرت وان مصيري ويري قبدي أساس وحي أنيقنا إيدي دي نكا كلانو قورستي فغرت عليها فقتلتها وان دلي ويري قبدي وان دلي ونفتان كجري فهل لي من توبة وح توبة دم إيسو كنتاي عباس بو إيمانيا قال وحير عبد الله بن عباس أمك حية هو يدا من نوشهي قال وحير لا قال وحير تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت وريوها فعل كاسمي سوى ذنوب واوين ومعاصي واوين وحمان واوين ونفط قف بعد نفتي سجرتي إلهي سبحانه وتعالى أطوبت كان ودو انت أتكري كرتو عمل أصمين كرتو لكن محو ويدي يمركو الرئيس عبد الله بن عباس أمك حية هو يلا من نوشها هدو يرادها وحورا لها أصمفل وناك أصمي سمفل إيا وناك أصمي عطاء بن يسار أرضي عبد الله بن عباس بوليه فذهبت وان تجيبه فسألت ابن عباس به ويدي لما سألته عن حياة أمه محاد ويدي سي عبد الله بن عباس هو يدي إني نوشايين كله فقال وحري إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر والدة بل عبد الله بن عباس فقه سوفيرس وحان سيدا أؤري نين كان دنبي وين بوغري إني لا أعلم عملا عمل مقرانيا أقرب إلى الله ألو واشبدي عز وجل من بر والدتي بر والدك الله سمينا عمل كهدو سمي لعل الله إلهي سبحانه وتعالى إنه ذنبي سدافه أذكر البخاري باكينا أدب المفرد كوكو كينا أدب المفرد كوكو كينا marka arrinka afraad ee bishaarada waxa weeye qofka labadiisa waalid samafal iyo wanaag u sameeya waxa weeye abshir fa anta yawm alqiyamah ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada ولا يجعل لك جبارا شقيا وحامل ولا جينا نبيدي صديقينتي شهددي الله سبحانه وتعالى جبار مدحك او شقي او دردفي الدنيا اخره لغا ييلي ميو اركاس رسولك صلى الله عليه وسلم ايا نوع عدينيا احاديث رسولك صلى الله عليه وسلم حديث امام احمد وصوصاريا سيدو كلا ابو خزيمه تاريخ يقدر وكو كينيا صحيح الترغيب والترهيب من الشيخ ناصر وكو صحيحنيا ايا وحا اليه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم نبا النبي قو يمي فقال وحير يا رسول الله شهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وحان قري الله حق لو عابدين سجر الله كليغي مويه اديغنا انات رسولك الله سبحانه وتعالى اي ارغيسي تahay من مات على هذا الرنكاس قريتانك توحيقات قبكي كل انت كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب إصبعيه ما لم يعق والديه انت صدوقره ضدكاس ميل تجياب يرمن مات على هذا سلاس السوء قري لا إله إلا الله محمد رسول الله قري ويقيسنا شروط هذه أركان هذه له قفك سيدا كوغيريو كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة وحمعه أهانيا ملا أهانيا النبي دي الصديقين تي الشهداء دي أي مالك قيامة ميل الدقيقة هكذا والنصر
طبع إصبعي فرتبوا تاجيو بركاس وحير ما لم يعق والديه هدوسا كاس عاق وصن أهين لودي سوالد مد عاسك وهدوسا أهين نبي يدي يصدقين تيشهدوا ملي معناه اللي جليا هدوسا عاقي هاي وانت أوقر الركاسي بشاراتي هلي مير وحال قفهم يا أن من بر بالديه كان يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء اللي قطعنا الله سبحانه وتعالى عيسى ابن مريم مركو كحكايوني عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا جبار مدح هذاك أو قاسم أو حاوي كبر بدل الله سبحانه وتعالى قفك برقية سمفلك سمية شقينا من نقضى جبارنا من نقضى بعد السلف أي وحي أورنجرين لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا هذا الكابل في أثرك تفسير ابن كثير آيات كينا جزء سدحات صفحة بقول لحدا يسديدات أيو مركو آيات داسي فصيرة يوحوا لي بعض السلف كي صالحين تون وناكسنا السلف كي قد يشهد مضنبا وحي إرادان لا تجد أحدا عاقا لوالديه هلي ميسد قف عاق لبدي سوالد لا وجدته جبارا شقيا وحد هلي يساعدوا يدو كو قرانيسا وانا جبار ومد اسلوين وكبر بدون جبار اوي شقنا واي هيو ادونكم وكل دسنا يا اخرنا كبدرن علامad lagu yaqaan way qofka caaqa le waalidiintiisa waana jabbar waana shaqi way arrinka sharaad ee bishaarada waxa weeye qofka labadiisa waalid biriya samafal u sameeya fa innal birra alwalidayn sababu lidkhul aljanna waalidku aad u samafasho birri iyo wanaag iyo samafal aad u sameeyso asbaabaha iyo sababaha jannada lagu galay kamid tahay عائشة رضي الله عنها حديث معروف كها إمام أحمد النسائي ابن حبان أي كيني وصحيح شيخ ناصر وصحيحين يوحى إلى ذا عائشة قالت وحي تري يا رسولك الله نمت واسحضي رسولك أغوى الرميسة ريي ويدينيسة وحي تري رسولك الله واسحضي في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ وحان إسار كيف يتري أنا الجنة كل حجرة فسمعت صوت قارئ من قارئة قرآن آخرنا يقرأ وآخرنا يقرأ الجنة لحظة أيان مقلي فقلت وحان إلي من هذا كاسواكه قالوا حيرادين هذا حارثة ابن النعمان صحابي قوي مركز نكاس هو حارثة ابن النعمان نكاس القرآن كأخرنا جنة لحظة مركو انت اشيكتي رسولك افصيره يوحي رسولك قال كذلك البر وكان بر الناس بامه بر يا سمفلكو سداسو كمتيسي جنو كمتيسي كذلك البر مركز رسولك يري مركز الله فصيره دك اي تلمامه وكان بر الناس بامه من اد بار او يديسو اها اد بار او سمفله waxay sabab ugu noqotay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada geeyo nimba u yimid abi darda أثر ورنا يا إمام الترمذي ابن حبان يا حاكم لفظنا ابن حبان وسخري يا صحيح سترغيب وترغيب كان الشيخ ناصر وكوكينيا يا واحد جاء رجل إلى أبي درداء بويم رضي الله عنه فقال وحير إن أبي لم يزل بي حتى زوجني وإنه الآن يأمرني بطلاقها وحير أبي درداء وحير نبا ويم أبي درداء تابعين تكورين أبي درداء كلمة نبا أبي درداء ويمت مركز وحير إن أبي لم يزل بي حتى زوجني أبي سوء وذي يكرنا يبربارنا كما الزول إلا يقوري قبر وإنه الآن يأمرني بطلاقها هذا وحو إليها قبردي وناقص يقوري فر وحو قبردها يسكفر قال وحير ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك مركز عبد الله أبي الدرداء انتو مصيب وحير ما أنا بالذي آمرك أنا ما يهمتك فريا أن تعق والديك إن اللبدا هذا والد عاصص هذا الكيس مقل أنا كمتها أيوه فرق بدي ولا بالذي آمرك أن تطلق بامرأتك قبض هذه فرق مضحية إنك إن شئت وحي امرأتك غير أنك إن شئت دونت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عبد الله بن أبي الدرداء فقيه صوفيس ونيو هداد هذه السؤال شيء ويديسي أظهر عاق كنقو وركيسا مقلنكم أورانية بدينا فرق مورانية لكن وحن كل شيء يا أبو يري وحروا هالك فقه إنه كلبحه فهم وكلبحه لكن وحيري وحن كاجو الرمية بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن رسولك كملي سمعته يقول الوالد أوسط أبواب الجنة والدك الباب الجنة النحوية فحاكد على ذلك الباب إن شئت أو دع الباب كاس أم حفظ أم تك حسب عطاء قال فطلقها نكي آخر كل حكودا بيوفر قبضي إلا هذا الكلام فهمي وحوي والد كرامين إلهي سبحانه وتعالى وقاسية درجة يش وقاسية
maalin maalmaha ka mid ah nin baa wuxuu yidhi asabtu dunuuban laa araahuma ilaa min alkabaa'ir dembi weyn baan ku dhacayo dembigaasna wax kale uma arkin ilaa kabaa'ir baan u arkayay dunuubta waa weyn fadakar dalika liibni cumar arrinkaasi cabdullahi ibni cumar baan u sheegay qaala wuxuu yidhi maa hiya muxuu yahay waxa aad kabaa'ir u aragtido aad macnaha i weydiinayso qultu waxaan ku idhi kada wa kada waa la qarinaya ila dadka wax qofka u sameeyey ma sheegaya ilaa markaa laakiin cabdullahi ibni cumar waa loo sheegay raawiga werinayaa yidhi kada wa kada لكن ولا قرنا وحو شيء قال وحو لي ليست هذه من الكبائر هن 9 الركاء سميس كبائر تكمد معها كبائر تواسقال الإشراك بالله وقتل النصمة وحوي نصمة نفع لقوية وحوي إلهي سبحانه وتعالى وحل لو ذا شرك للي ماذا والفرار من الزحف ما كي عظمت يسكوري ماذا ولا عرره وقذف المحصنة قبائر محصنة أو وناكسا أو زنا يحمان أن أقونين وزنا لقوشيك ay zinaysataa luqyaday gashaa dharka waxba ugu qarsoon waxyaabahaas qadafkaasi kabaa'irta waaweyn bay kamid tahay wa aklu ribada oo la cuno xaaraanta ana waxay kamid tahay dembiyada waaweyn ee kabaa'irta wa aklu maal al-yatim agoonta xoolada la cunana kabaa'ir kamid tahay wa ilhaad waxa weeye wa ilhaad fi al-masjid masjidka oo lagu ilhaado lagu xadgudbana waxay kamid tahay dunuubta waaweyn ilhaadka waxyaaba xumaan lagu sameeyo walladhi yastaskhiru wa bukaa'u al-walidayn al-uquq walladhi yastaskhiru midka fududaysanayo wa bukaa'u al-walidayn iyo oohinta waalidka laga oohisiyo min الحقوق عقل ماذا كمثل الله أكبر قال لي عمر باوحو أستفرق من النار نار ما كعرضيسة وتحب أن تدخل الجنة ما جعشها الجنة إنها تقشو بل هذا الكاسو في عبد الله بن عمر بانيكي سيوانين يوحو لي أتفرق من النار أي أتخاف وتفزع وهي ما كحيسا ومن نعسا ما كعرضيسة النار وتحب أن تدخل الجنة ما جعشها الجنة إنها تقشو قلت وحن كير أي والله وحن رادين يبوا أنت سوي إنه الله سبحانه وتعالى نار يقفقيه جنة يقيه قال وحوير أحي والداك لبدا هذا والد من نوليهن قلت وحن كوري عندي أمي هو أكتي إذا وحا كنا له يدي قال وحوير فالله لو ألنت لها الكلام وعبد الله بن عمر بعض دارنا والله بانكو دارتي لو ألنت لها الكلام هذا الكأن ليس أجل عيسو وأطعمتها الطعام فشرعات قوضيه لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر انت هداد كبائر تكفقاته جنة ذات قليسة وكل دارنا يا عبد الله بن عمر والله هداد هذا الكون نقول ليس أض أجل أضن عرب كتاجن وأضن كأداد كين فاشين كان أتقودي سو أض وحسي عند وادك أبار إنما سميس سما فلك عند صينتي هذه كذا كو قليسة بقى هذا يكون شقين إسابة هذا يكون أرد إسابة هذا يجي كبا أنت يسلوا إسا صارتات كسو إسا يجي كو قشوا وحكو سيسا الله أكبر هذا كبائر تكفقات الجنة قليسة أبي هريرة رضي الله عنه رسولك وحوليه رغم أنفه ثم رغم أنفه هسم بوروبو وسنكي صدوكا كدعو ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله رسولك الله كاسواكي من أدرك والديه عند قفك اللبيس والد صاها ليلا يقو دعا أو أحدهما أما متكوت أو كليهما أما متكوت ثم لم يدخل الجنة أما الله بضو صاها ليلا أما متكوت با أن صوبته الجنة وقلن أسواه هلاك سموه هوغي هذا برجع يا سمفلك والدين الله سمينا يا إسلام كشأني يا حاد وين بكدجي فضل آدي وين بكدجي كيف ساه إلهي سبحانه وتعالى بر الوالدين بعبادة وشكرهما بشكر بكحري وكل ما لبدا والد الله صف عبادة إلهي سبحانه وتعالى يسقوا العابده بر الوالدين كحجي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا markii la yiri alla kaliya caabuda cibaadadii maxaa lagu xijaa bil walidayn ihsana nishkur li wa li walidayka ilayya al-masir Allah subhanahu wa ta'ala shukrigiisa kadibna thumma walidaynti lagu shukriyo nimcada iyo barwaaqada ay ku galeen hadda qofka bariga labadiisa waalid ah birigiisa iyo samafalkiisa uu sameeyo dadaalka iyo juhdiga uu labadiisa waalid ku bixinayo ama midkood nool sacaada iyo nolol iyo adduun iyo aakhira labadaba ilaahi subhanahu wa ta'ala u ballan qaaday ama qofka caaqa ee labadiisa waalid caaq ku ah ee caasiga ku ah ee aan ateecin ee aan warkooda maqal ee aan waxba xiriir saas faqdi iyo carab ku dhacaysa ilaahi subhanahu wa ta'ala rida rabbi fi rida alwalidayn wa sakhtuhu fi sakhtihima هذا وقفك عاقة إلا بدي سوالد عاقة كواه إلهي سبحانه وتعالى وحب بشاري الروح هذه إنه سن إلهي سبحانه وتعالى ما نحيا مقفك سئين جندي سنقلينين 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال
والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن الخمر والمنان بما أعطى الله أكبر برادين كان أفيرسو qofkii caaqa ahaa ee labada waalid caasi oo aan u samafal alla ma fiirinayo maalinka qiyaama jannadiisana ma geynayo nabigu waxa uu leeyahay thalathatu saddex laa yanzuru allah ilayhim ma eegayo il naxariisa kuma fiirinayo maalinka qiyaama yawm alqiyaama waa kuwa saddexda alcaaqu liwaalidayhi qofka caaqa ee labadiisa waalid ku caasinimo sameeye ee biri iyo samafal u samaynin maalinka qiyaama alla subxaanahu wa ta'ala il naxariisa kuma eego talabaadna wal mar'atu almutarajilatu وهوينت إسلام النميسة سيدا نينكا إسكاديكتا سيدا نينكا أشاليساتا سيدا نينكا تماها أجالتا داركا رقا قادتا سيدا رقا أصحيد المتشبهة بالرجال رقا إسوء كيسي سنة تاسنا الله إلنا حريصة مالك قيام يكون إيجيو والديوث كسدحادنا روح الديوث إيه كيسا يعرورتي سيقوري كيسا حمان ترالي قوغا وحا أي سمين يرالي قوغا waxa ay qaadanayso oo dhar ay qaadanayso shariicada islaamka qiyaad dayuus wax xumaan qofka sameeynaya qofkiisi oo mas'uuliyadda ka ahaada yahay dayuus baa liraa dayuus la yadkhulu al-janna ma gala qofka dayuuska wa thalathatu la yadkhulu al-janna saddexna jannada ma gasho العاق لوالديه قفك عاق لبدي سوالي والمدمن الخمر قفك خمرك جوكتي والمنان بما أعطى قفك وحو بحيكم من الشيغانة يضك كوكال هذا الشيغانة وحسن سي وحسن نقطي وحسن ساي أنا كياني أنا سيدا أسمي هدوسا أنا أحين مية صاو نقول لها قفك أسمني الشيغانة أما وحو فعل أقوقتها النقطة أما وحو سيها النقطة قفك أسنا وحاوي جنة الله سبحانه وتعالى قلمي هذا قفك عاق لبدي سوالي عاق كوا وحاوي يعقوب بشارة وعنق رسولك صلى الله عليه وسلم عرب كيسا ملعون من عق والديه والرسول صلى الله عليه وسلم وليه والله لعنه قفك عاق النقض لبدي سوالي الله أكبر الله أكبر دعاء النبي والله أقبل يا صلى الله عليه وسلم وحكم بشارة سنة إنه صن إلهي سبحانه وتعالى لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا سنة إنه صنحك أقبلين ثلاث لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بالقدر سدح ناس إلهي سبحانه وتعالى سنة سكوى الله يا الله سبحانه وتعالى حكم أقيا مالك قيامة قفك عاقة وحوي لبدي سوالد عاقة كوا هكب بشارة لن تفلح أبدا ولقى من اللي بانيسد أدون كانوا كم اللي بانيسد وحا أترجينيسد يقولك أتكسنيسد مقاريسد آخرنا كبا الضرنبا جبريل عليه الصلاة والسلام نبي قويمين جبريل باها باري رسولك صلى الله عليه وسلم آمين ويرد عديسة والداك يدعاني عليك والله يستجيب اللهم فيه الله أكبر مال ما كم وقت حديثك معروف كان نبي ومنبرك أوفولي آمين 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 مكاسا وحي رسولك مكاي صحابة جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعد الله قل آمين فقلت آمين بان قفك لبدي سوالد أما واحد كي سوق جارة أو صوب برجي يسمفلك وصن أصمين النار كوجلا فأبعد الله فوق يقول كاس آمين مركزان آمين ملك الجبريل يا النبي الله محمد بآمين سؤال قفك سؤالون يا آخركم قصار بل رسولك صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحة البخاري هذا المفرد كي غير كي ترمذي أبو داود ابن ماجه بأي كان ثلاثة دعوات مستجابات سدح بريضك والله أقبليها لهن لا شك فيهن وحي الرسول كريعيه وحشك يعني مالي إن لقى أقبل يقفك دعوة المظلوم روح للدلمية بريدي هباركي سقفك أو هبارو الإله قفك وائد الدلمية إيقابه بريدي سوال أقبل إياه ودعوة المسافر قفك مسافر كسفر آذينا أدو إلهي بريدي سوال أقبل إياه ودعوة الوالدين لبدا والد بريد أما هباركوضا على ولدهما المهوض أما أدعيان أما هباران والله أقبل إياه عرب إن لقى إلهي مركا هوارك بدن إلما إن لو دعيه قفك عاقون نقضه وحوي سدود وحوي كدين دكتور لوجا دين دقيا أبا المرين الجزاء من جنس عمل قفك عاق كوه تاريخه من بداية إلى النهاية وحصة قفك عاق لبدي سوالد كوه عاقني ماذا صادم بين يسيسون كويسة الجزاء من جنس العمل قفك برئي وسمفل والد كي أصمين أولادي سأصمين قفك عاقني ما أصمين عاق بالإلميه سكون نقنيا قصص كواقعية حياة ضدك مسلمين تحت الماميان حتى الله أما متك قاعد إنه أنصار أرورنا هذا الكلام نين أغنية دي يمال قبيل كم جدها أيها وحلا ولد هو يدي وكسوك عيادي بجريده هو يدي سوك عيو برجي سيبو كينه لتعيش تحت كنف يسوي إلا نولات حالة يدور
buu istaagay uu birnimo sameynay wanaag buu sameynay xaajaadkeedo dhan buu u guday halka isagoo marayo maalin maalmaha kamida guursaday ninkii maal qabeenka ahaa haweenay buu guursaday la tuhibbu illa nafsaha wax kala aan jeclaan kaliya nafteeda mooy aan cid kale iyo wax kale iyo dad kale iyo daryeelkoodaba aan ku lahayn in wax loo soo dhaweeyay iyo sodoh iyo meelaha loo ka keena waxa soo dhan baan arki karin xayaatada iyo noloshana iyada kaliya u muuqato cid kale nolosheeda uma muuqato waxa cariiri ku qabatay islaantan uu ninka hoos wato ee hooyadii ah noloshii bay cariiri kula noqotay gurigii bay isku dhibsadeen waxay ahayd mid mar walba habaarta oo tabuur iyo idaam iyo shidda iyo dib ku sheegta habartan waayeelka ay dibka badan ee shiddada badan inkaarta qabta xagee nooga tib inta calaacal iyo waxa weeye arrimahaasi ka hadasha waxay badin jirtay shaqo ay ka dacwoonayso oo ninkii mar walba ku badinaysa ani islaanta ma wada noolaan karno gurigii amaana ku haraya ama iyada ku harayso dacwo iyo shaqo ay ku noolay islaantani warkeeda batay hadalkeeda batay dibkeeda batay sida saay ku noolay iyadoo dacwadeeda iyo shaqada u weyn adduunyada zamankii cajalkii baa soo wareegay islaantii waayeelka ahayd miskiinada ahayd la noolay sarc baa ku dhacay kansar dhinac kaga dhacay junuun dhinac kaga dhacay intaas oo arrimooda xanuun baa lagu sii imtixaamaya islaantii ku dhacay zawjadii oo walba sheeganaysay oo dibka ka sheeganaysay islaan gurigeeda iska noolayd oo howlaheeda qabsanaysay hadii xanuun ilaahi subhanahu wa ta'ala u keenay xaalatu tamarrud bay u dhacday caam oo wax walba ka hortimid ninkii iyada madaxa isla galeen ninkeedii baa waxay ku tiri laka an takhtaara imma ana wa imma ummak inaad aniga ii doorato ama inaad hooyadaad ka doorato wax ka dhaxeeyo ama madaxayga halka ii dhig ama waxa weeye hooyada meel kala geey saa kuma wada noolaan karno ninkiina waa ku noqday oo uu iska bariyay wax walba ku sameeyay zawjki baa iska ahaa thumma istaqarra رأيه على أن يتخلص من أمه سي هو شالك أمريسي أو كحق بدتي قوتي جعيل كذي يا محبة ذي يا نلاش ذي رأيي شيدان بكفى إذا يسوى حال يسكو أفقرتي إن لقى تخلصه هو يدي حنون سنة محوسمية مال ما كمذا وحاول لفو لي جوري سقيبتي سيد قصر لفو لي هبين مجدية على سطح يا وحوي ماشي وصل لي تقول لفو لي هل كاسو كسور إذا هو يدي dhulkii bay ku soo dhacday afaasteedii akhiirka ahayd ee nafta markay ka baxayday ay markay ka dhamaysatay ayaa waxa weey ninkii miskiinka ahaa ee caaqnimada halka ay gaarsiisay oo halka gaaray inuu hooyadii waxa weeye uu dhiigeeda daadiyo oo nafti uu ka qaado waa la ibtileeyay waa la imtixaamay adduunyadii baa mugdo noqotay qalbigii baa cariiri ku noqday sidaas noloshiisa ay إلهي سبحانه وتعالى كي ظالم كاها بنفس مرض أمي حنونكي هو يدي لغو امتحامي با يساقي كل عاي هبين كميدا oo gabadhii waxa weeye arrinkaasi ku noolayd markay aragtay xaaladii inuu isagii uu ku nool yahay shaatiyal mudlima habeen ah ayay waxa weeye sadxigii la fuushay naftiisii halkaas ay ka riday meeshii hooyadii ay ka riday dhulkii buu ku soo dhacay markuu soo dhacay waxay tiri xaamilata min al-atham ma tanul jabal wal jazaa'u min jinsi al-amal inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha waxa uu dareemay wixii lagu abaalmariyay ahadkii wixii uu sameeyay in lagu abaalmarinayo lagu gooynayo caaqnimadu ku sameeyay arrinka waxay ku tusaysaa ilaahi subhanahu wa ta'ala dadku iyo noloshu isku imtixaamaya guriyuhu way isku imtixaamaya waa guriyaha dadka ku wada nool waalidkii ku nool waxa weeye wiil jacaylka iyo maxabada guriga ay gabadhu ninka ka raadinayso hadaysan sodohdii ka keensan hadaysan ka abaal darin xiriirinta ay xiriirinayso waxay kamid tahay cibaadad ilaahi subhanahu wa ta'ala ay ugu dhawaanayso hatta hadaysan la noolayn xasuusinta ay isaga xasuusinayso waxay u tahay sacaado gurigoodii waxay u tahay nolol gurigoodii adduunyay u tahay ilaahina subhanahu wa ta'ala arrinkaas uu kaga abaal siinaya kaga abaal marinaya shilinka loo diray isagoon ka warqabin haday u dirto oo hooyadii tiraada gabadhii duceysneed baa ii soo dirtay inta isagana qalbigiisa farxad bay u tahay iyadana xiriirin iyo wanaag iyo nolol ilaahi subhanahu wa ta'ala bishaaraynteeda umitahay adduunyadana uu ku siinayo aakhirana uu ku siinayo arimahaas oo dhan waxa ay na tusayaan qofka caaqa ku noqda waalidkii isagoo dariiqaas uu maraya maalin maalmaha kamida ayaa mid caaq ah oo waalidkii caaq ku ah ayaa waxa uu ku bireeyay aabihii dhagax hoostiisa weyn intuu la tagay uu ku bireeyay markaasuu waxa weeye markuu noolaaday oo wiil uu sii dhalay oo mustaqbalku waqtigu uu soo wareegay ayaa arrinkii oo kale isagana tii oo kale ku dhacday wiilkiiba inta la tagay buu sakhra
hoostiisuu la tegey si u gowraca aabihii markaasuu aabihii wuxuu yidhi yaa bunaya in kunta faacilan haddaad wax samaynaysid fadbaxnii cinda hadihi sakra dhagaxa hoostiisa ige wiilkii baa wuxuu yidhi waaban ku dilayaa halkaa iyo halkaa xaggaa maxay isdhaantaa wiilkii baa weydiiyey markaasuu yidhi faqaala lahu abuuhu liannii dabaxtu waalidii cinda hadihi sakra sakradan iyo dhagaxan aad arkayso hoostiisaan anigu waalidkay hooyo aabbahay ku gowracay nacam wallahi kama tadiinu tudaan والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وجزاكم الله خير بنات الأخوات إن شاء الله تعالى موضوع عسان سكرت إن جديو إلهنا سبحانه وتعالى ميزانك حسنات كان نصار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته